Magacayga waa Steve. Waxaan hadda kuu sheegi rabana waa dhibaatooyinkii aadka u foosha xumaa ee aniga noloshayda soo wajahay markii aan jiray 19 sano. Markii aan jiray 16 sano, aniga waxaan ahaa hacker. Waxaanan aad u jeclaa dhinaca madowga internetka. Waxaan ku bilaabay markii hore waxyaabo fudud sida inaan jabsado emailada dadka, laakiin wax badan bay iguma qaadan inta aanan noqon hacker weyn. Dadka ayaa waxay dirsan jireen shaqooyin kala wareejina, taas oo ay markaas dirsan jireen shirkadooyin caan ah inaan u dhaco oo lacagtooda soo wareejiyo. Markaas waxaan noqday mid caan ka ah dhinaca madowga internetka. Waxaana markaas ka haray iskoolkaygii, waana ka guuray gurigaygii oo reerkaygii oo dhanba waan ka soo tagay. Xiriir kasta aan la lahaa reerkayga waan jaray oo dibta moolama halin, sababtoo waan ogaa shaqooyinka noocan oo kale inay dhibaatooyin aad u badan keeni karto. Inkastoo aan ogaa khatarta ay leedahay shaqadan, haddana aad iyo aad ayaan u jeclaa ilaa laga soo gaaray habeenada ka mid ah, taasoo dhibaato badan iga soo raacday. Habeenkaas waxaan jiray 19, waxaanan helay codsi shaqo, taasoo ahayd inaan kala dhex galo group Russian ah, kuwaasoo markaas gadayay qoryo. Waxaana ahayd shaqadayda inaan sameeyo ciwaan feega kaasoo aan ka galayay internetka madow, kadibna aan soo dhigo sawirada qoryaha oo markaas lacagtooda ka helo. Qorshaha waan ku guuleystay sidii aan kuwii ka horeeyayba ugu guuleystay. Markii aan lacagta helayna, waxaan siiyay ninkii iga codsaday shaqada. Markaasna waxaan ka helay 10% lacagta sidaan horeba iskugu raacnay. Markaas aniga ma ogeyn cidda shaqada ii dirsatay, ayagana ma aysan ogeyn cidaan anigu ahay. Sababtoo ah mar walba markii aad dhinaca madow ka galaysid internetka, waxaa mar walba lagu qasban yahay macluumaadka shakhsiyadeed in la qariyo. Waxaan xasuustaa hawshu markii ay dhamaatay in ninkii shaqaaleysiyo uu markaas ii soo qoray fariin ah, waxaan kuugu waanin lahaa inaad cararto. Aad ayaan la yaabay, arrin sidaasna hore uma arag. Markaasba waxaan weydiiyey, maxaad ula jeedaa arrintaas? daqiiqada kadib ayaa ninkii shaqaaleysiyo wuxuu igu soo jawaabay, waxaan faraha la galnay gruubkii raashinka ahaa, qofna hore ugama baxsan gacantooda. Waxayna ahayd sababtaasi qof walba wuxuu u diiday shaqadan, waana kula yaabaneen marka adiga ogolaatay. Habeenkaas fariintii ugu dambeysay oo ninkii shaqaaleysiyo soo diray waxay ahayd, tani waxay noqon doontaa fariintii ugu dambeysay aan kuu soo diro amnigeena darteed. Intaa kadibna kulama sii xiriiri karno. Hawshu way dhamaatay, waanad ku mahadsantahay shaqadaada. Midana waxay ahayd arrin caadi ah, sababtoo ah markii ay labada qof shaqada ka dhex dhamaato, dib dambe iskuma xiriiri jirin, sababtoo markaas amaankooda ayay ilaalinayeen. Waxaan xasuustaa habeenkaas in aan seexday anigoo erayadii ninkii shaqaaleysiyo maskaxdayda ka yeerayaan. Waxaan kuugu waanin lahaa inaad carartid. Markaasna waxaan go'aansaday inaan sii xoojiyo amaankayga oo wax jaanis cid kalaba siin. Markii aan intaas sameeyna, waxaan dareemay aaminaad aad u weyn, laakiin waxaa jirta qayb jirkayga ka mid ah taasoo si saa'id u ogeed inaan aamin ahayn. Waxaa ka soo wareegtay 2 isbuuc, arrintii oo dhanna maskaxdayda way ka baxday. Laakiin waxaa dhacday arrin aad u layaab badan. Waxaa iga soo dhacday fariin ninkii ugu dambeeyay u shaqeeyay, ninkii u qabtay hawshii ku saabsaneed gruubkii raashinka ahaa. Arrintaas layaab ayay la ahayd. Sidaan horey u sheegayba, labada qof markii ay shaqada ka dhex dhamaato, dib dambe looma baahna inay iskula soo xiriiraan amaankooda dartood. Laakiin markii aan message-ka akhriyay, waan ogaa inuusan isla qofkii ahayn. Fariintu waxay ahayd, isla qaabkaan ninkan u soo helnay ayay noqon doontaa isla qaabkaan kuu soo heli doono. Isla qaabkaan ninkan u cadaabnay ayay noqon doontaa isla qaabkaan kuu cadaabi doono. Annaga waa kuu soo soconnaa. Markaas ayaana dareemay isla qofkii hore inaysan ahayn. Waxaan dareemay in dhuuntayda markaas soo bixi rabto, jirkaygana cabsi saa'id ayaa gashay. Isla markiiba guri kale ayaan bedeshay. Shaqada internetka madow muddo badan ayaan ku jiray oo lacag badan ayaa markaas ka haystay oo hadba aan guri cusub ku tagi karo. Laakiin maalintii ugu horeysay gurigayga cusbaa soo degay, waxaan helay hadiyadeedii ugu horeysay taasoo wadatay warqad, kuwaasoo ii soo direen dadkii dariska. Waxaan ku qornay si aan ku dabaaldegno soo guuritaankaaga, waxaan ku siinaynaa inta ugu dambeysay Ruushiyaan ayaa ku qorneyd, Google-ka ayaana ku baaray, waxayna noqotay markaas waraaqadaha xafladda. Waa ka labalabeynay markaas inaan bokiska furo, laakiin nafsadeeda waan ku qasbay. Markii aan furayna, waxaan gudaha ku arkay nolosheeda dhan ayay naxdin ku dishay. Markaasna waxaan u malaynay markii hore hilib caadi ah, laakiin markii aan sii eegaba waxaan arkayay jir bili-aadan oo la jarjaray. Markaas waxaan ku dhex arkayay faro iyo lugo iyo indho bokiska dhexdiisa. Waxaan xasuustaa inaan qayliyay habeenkaas, waxaanan ka cararayay bokiska. Habeenkaas waxaan degay hotel, laakiin ma seexan, sababtoo ah waan ogaa inay daba socdaan. Cabsidu waxay ahayd mid saa'id ah, waanan ogaa inay dili doonaan, laakiin ma rabin inaan dhinto. Waxaanan go'aansaday inaan guurguuro. Waxaan ka guuray hotel anigoo tegay hotel kale, waxaana ugu dambeyn helay meel aamin ah. Muddo maalmaana wax dhibaato ah iguma dhicin, laakiin isbuucba kama soo wareegin intii aanan helin bokis kale.
laakiin markaan fariinta waxa ku qorneed xataa anigoo haysta waxaanoo faraa ma tirin karo inta in la eg aad naga xadid waxaa laga yaabaa inaad adigu tirin kartid waxaana markaas ku qorneed erey kale oo raashina waxaanan ogaaday ereygaas in laga wado ku faraxsanow inaad tirisid laakiin markaan ma rabin in aan furo si aan u ogaado bokiska dhexdiisa waxa markaas ku jiro laakiin waan furay markaana waxaan arkay 60 farood oo dhiig leh oo markaas dushooda iskorsa saaran waxaan dareemay inaan soo gaaray wada xiran ma aadi karin markaas booliska oo ma sheegi karin arintaas sababta anigu ma ahayn wiil bilaa dambiya mana aqoon waxaan sameeyo sababta inaan u guuro meel kale ma ay ahayn mid shaqaynaysa markaasna waxaan go'aansaday inaan u guuro gobol kale waxaana markaas aad u waayay lacag aad u tiro badan oo hurdadeydina waan awoodi waayay inaan seexdo laakiin waxaan ku adkaystay in aan la helin ugu dambeyn waxaan u guuray meelaan cidnaba iga aqoonin waxaana markaas joojiyay inaan xaqan gareeyo waxaana bilaabay inaan ku noolaado lacagtii aan helay bil ayaa ka soo wareegtay aniga waxaan u maleeyay markaas inaan amaan ku jiro laakiin habeenada kamid ah waxaan ku soo laabtay guriga ayadoo markaas fariin hortaalo waxaana markaan ku qonnaa maadaama aad muddo badan guurguuraysay waana ogeen wax waqtiga inaadan u helaynin erey kale oo Ruushiyana markaasna ereygan waxay ahayd waxaanad u helaynin waqti in aad gurigaaga sharaxato markiina gadaal ayaan u booday gurigayga ayaan albaabka u furay waxaanan arkay gurigayga oo markaa ku sharaxan qaybo kamid ah bini'aadanka jirkiisa gacmo ilmood ayaa ku sharaxana meesha dabka miiska korkiisana waxaa saarnaa lugaha bini'aadanka saqafka korkiisana waxaa ka soo lalaaday gacmaha bini'aadanka markastoon si fiiriyo waxay mid ka sii daraysa maadaama gurigaygu hadda noqday sida guriga cabsida ee kale waxa markaas igu dhacay madax xanuun aad u badan dhulka ayaan ku dhacay waxaanan bilaabay inaan markaas qayliyo laakiin intaanan kicin koor waxaan maqlay cod aad weyn kaasoo markiiba madaxayga soo jeediyay waan jeclahay inaan arko nin maskaxda ka dhimanaya codku wuxuu ahaa midaan luqadda si fiican ugu fiicneen intii aanan sii jeesanba waxaan jirkayga dareemay xanuun aad u badan maadaama faashad aad u afaysan garabkayga lagu kala jaray anigoo dhibaataysan ayaan dhulka ka kacay waxaana si degdeg ah u bilaabay inaan fiiriyo ninkii soo weeraray laakiin wajigiisa ma arki karin fiirinta jirkiisa kaliya waxay sheegaysay inuu nin weyn yahay dad khaldan ayaa wax ka xaday hunuggiihu inta jeer ay gurgurtay markaan u fiirsadayna waxaan arkaa inaadan wax lacag aysan ku soo harin waxaa lay sheegay inaan ku soo helo kadibna niyadda kaa diro markaa kadibna intaan ku jarjaraan ku qaxiyo kullina waan sameeyey aan ka ahayn xabadda ugu dambaysa marka intaad awooddi isbadbaadi hunuggiihu taasina waxay ahayd waxa aan sameeyay markuu dhinacayga soo ortay si uu weeraro markiiba waxaan qabsaday miiska waxaanan bilaabay inaan kala wareejiyo isaga ayaana ku qaatay ka gadaal ayuu wuxuu ku sabiixday dhiigii dhulka yaalay taasoo ku sababtay inuu madaxa ku dhufsado meeshii dabka markii dhulka ka dhacay waxaa isla markiiba ka soo cararay guriga waxaanan bilaabay dhaxanta sinaan maro wadooyinka cidlada waxaa markaas ka daalanaa inaan carcarro waxaanan nafsadeedii dhaawacneed oo dhiiga ka daayay markaas u dhaqaajiyay dhinaca police stationka maadaama aanan haysan meel kale oon aado markii waxaa layla cararay isbitaalka booliskiina wax walba waan u sheegay markaasna waxay la yaabanaayeen arintayda muddo isbuuciyana waxaan anigu ku jiray ilaalinta askarta oo iyaga ayaa ilaalinayay muddo kadib waxay la fariistay ninkii dambi baaraha ahaa kaasoo ii sheegay inaan hay wiil aad u nasiib badan maadaama aan galay dhibaatooyin aad u tiro badan kuwaasoo la galay dad aad u xun kuwaasoo lagu yaqaano inay cadaabaan dadka qof walba oo wadadooda ka hor yimaadana way jarjari jireen oo markaasna way cadaabi jireen markaa nasiib ayaan lahaa waxaan xasuustaa inaan dhahay ugu yaraan waxba iguma dhicin noloshaydana markaas waan badbaadsaday markaas ayayna ahayd markii dambi baaraha oo si la yaab la ii fiishay kadibna yidhi markaa hadda ma ogid miyaa arrinta dhacday aad ayaan u yaabay markaasna waxay ahayd markii aan idhi ma waxaa jirto waxaan u baahanahay inaan ogaado markaas ayayna ahayd markuu ii sheegay dambi baaraha warkii ugu foolxumaa noloshayda markaasna wuxuu u dhaqaaqay inuu ii sheego jir kasta oo laga soo helay guri kasta oo u guudhay waxaa la ogaaday cidda ay yihiin waxaana la ogaaday qof walba oo jirkaas ka mid ah inuu ahaa qof adiga familkaaga ka mid ah indhihii iyo lugihii ugu horeeyay waxaa lahayd hooyada farihii tirada badnaana waxaa lahaa walaalaha jirarkii loo isticmaalay in gurigaaga lagu sharxayna waxaa markaas lahaa habaryooyinka in adeerada iyo xataa awowayaashay adeerada iga raali noqo mudane Smith laakiin waxay dabar tireen reerkaagii oo dhan kulligood ayagoo isku dayay markaas inay adigu soo gaaraan waxaan bilaabay inaan ooyo anigoo markaas dambi iga buuxo ma ogeyn xiriirkii reerkayga oo dhan waan jaray waxaanan u qabay inay aamin yihiin jirkaan arkay dhan waxaan u qabay inay dad qariib yihiin laakiin waxay ahaayeen reerkaygii oo dhan aniga oo kaligeeya ayaan waxaan dabar tiray reerkaygii oo dhan waxaana laygu xukumay nolosheeda inta ka dhibnay inaad dambi la noolaado
10 sano ayaa ka soo wareegtay dhacdadaas, anigana weli waxaan ku hoos jiraa ilaalintii booliska, waxaana weli ku noolahay depression iyo niyad-jab. Noloshaydii dhan way burburtay, waxba iima harin. Waxa kaliya ii haray waxay tahay calaamad aad u weyn oo qalbigayga ku taalo oo noloshayda hore soo xasuusinaysa.